Safaaradda dalka Djibouti ee Soomaaliya ayaa maanta waxay agab loogu talagalay kubadda cagta taasi oo ka timid madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ku wareejisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dalka iyo wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Agabkan ciyaaraha ah oo ka timid madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa loogu talagalay ardada wax ka barata dugsiga lagu maamuusay halgamaa Maxamuud Xarbi oo ka soo jeeda dalka Djibouti kaas oo hadda ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn munaasabadan agabka lagu wareejinayay ka hadlay safiirka dowladda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan. waxaan sidnaa maanta waa hadiyad ka timid madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle una soo hibeeyay ardayda wax ka barata dugsiga Maxamuud Xarbi ee magaalada Muqdisho gaar ahaan u socota. Maxamuud Xarbi oo maamuus iyo martabo cid kasta oo maaragtay geeska Afrika aba ka mudan oo Soomaalidu ugu horeyso ahaana maaragtay gobonimo doon halgamaa oo u noolaa una shahiiday xorriyad u doonista iyo la dagaalanka gumaysiga iyo ummadda maaragtay Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba sidii ay heeryaha gumaysiga u tuuri lahayd waxay garatay dowladda Soomaaliya inay ku maamuusto kuna magacawdo dugsiga la yiraahdo Maxamuud Xarbi. dhanka kale waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha dalka Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle waxayna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kaga mahadnaqeen agabkan. run ahaantii iskuulka Maxamuud Xarbi waxa uu ku jira iskuulada wasaaradda waxbarashada runtii sida aadka ah ay ugu taanto mar walbana taageeradaas aad la garab taagan tihiin runtii waa soo dhaweynaynaa. waxaan si kal ilaaba u soo dhaweynaynaa maanta hadiyadan qaaliga ah oo nooga timid walaalkeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. runtii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ay ka dharagsan yihiin runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo sida runtii mar walba uu garab istaago walaalaha Soomaaliyeed. waxay noo tahay sharaf aad u weyn in aan ka soo qayb galno munaasabadan safiirka iyo safaaradda ay noogu soo gudbiyeen hadiyad sharafeed uu nagu maamuusay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti aabahayaga annaga haddaan Soomaali nahay oo gacan ka geystay dib u curashada 20 jirsatay ee dowladnimada Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Bulbul Universal TV Muqdisho.